الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما أنا خيارتا أيها الشرف الصومالية ميلا شوكتان بسلاني كوركي نها هاتو وغرينكي يمركالي أفر غضبو كوبان رواينا وحكيرا هذا بإذن الله كريم. ومركا هوري همباليادا كودا جولاي ومانتا أناقا قديدا وكودا جولاي ودن كان اندقانا هاي واسم بينو كان هاي وحاربان راهدو ومدى الصوماليات همباليو ميلا شوكتان با ولو آنن أركين وحوين oo la isugu hambaliyeeyo oo wadankeena khatara badan ay dul hoganayaan misana ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka toogaynaa sanadkan sanadkiisa inuu inagu gaarsiiyo inaga oo intan ka wanaagsan oo wadankeenu xor yahay oo wadankeenu awood dhaqaale iyo mid ciidanba uu hore u socdo biidnillaahi. waxaan se rabaa inaan idhaahdo qadiyadda qarannimada oo dadka maanta boosashinada ama gobol ha joogeen ama federaal ha joogeene daacad ha ka noqdeen waxa ay ka hadlayaan oo qowlkooda iyo ficiladooda ha iswaafaqeen. waxaan dhegaystay Siciid Cabdulaahi Deni oo ka sheekaynaya qarannimo, oo ka sheekaynaya xorriyad, oo ka sheekaynaya ciidamo, oo isqiiraysiinaya. waxaan rabaa inaan Soomaali u sheego oo reer Puntland u sheego haddii ay jirto dad caqliga ummadda caayaysa waa Siciid Cabdulaahi Deni iyo Axmed Madoobe. anigu horaan idinku sheegay waxaan rabaa ilaahay inaan ugu dhawaado subxaanahu wa tacaala oo cibaado ka dhigto inaan daalimiinta dadka ka ganacsanaya sharafta iyo qarannimada iyo siraha waddanka inay iibiyaan oo ay ugu horeeyaan Siciid Cabdulaahi Deni iyo Axmed Madoobe ay ugu horeeyaan inaan ilaahay ugu dhawaado. wuxuu ka sheekaynayaa ciidan isaga iyo Axmed Madoobe waa labada nin ee Soomaaliyeed ee dowladda Turkiga ku ashtakeeyo ku dacweeyay inay ciidan xoog dal u dhisaan. wuxuu ka sheekaynayaa qarannimo, waa ninka sirta qarankiisa u gacan geliyay waddanka la yiraahdo Imaaraat ilaa uu raadaaladii Israa'iil ku soo rakibay Boosaaso. waa ninka diidan inay Soomaaliya jaha u dhaqaaqdo. waa ninka diidan oo hadda ku faanaya inuu Soomaali ka go'ayo. waa ninka ku dhawaaqay inuu lacag isagu u leeyahay samaysanayo. kaasaa intuu fagaare isa soo taago dadka wuxuu kala hadlayaa qarannimo. kaasaa intuu fagaare isa soo taago dadka wuxuu kala hadlayaa ciidan. waa arkayseen ciidankii kusoo dhaawacmay Calmiskeed oo cusbitaalka Boosaaso hortiisa wadooyinka toban iyagoo ka cabanaya macaluul iyo daawo la'aan. marka qofka noocaas oo ay ahayd ummadda inuu ka xishoodo inuu dadka intuu qarannimo uga sheekeeyo oo uu isqiiraysiiyo uu yidhaahdo dadka caqligooda la caayaya, isagaa dadka caqligiisa caayaya. qodobka labaad wuxuu ka sheekaynayaa Soomaaliya iyo ciidan iyo dhul. aaway Puntland baa ninkan loo dhaariyey, xaggee Puntland ku dambaysay? Puntland wuxuu ka iibsaday gooni ugoosato. isweydiiya ninkani munaasabad kasta iyo bagcad kasta oo ka hadlayo 50% hadalkiisa waxaa ka mid ah ka-anaka inuu lawyer u yahay gooni ugoosatada. yaa shaqadaa u dirsaday? nimankani calankii Soomaaliya gubeen, Soomaali bay ka go'een, dhulka isagu uu xukumo ayay sheeganayaan, qaybna ay haystaan oo ka taliyaan. halkii uu ku qaabili lahaa dagaal iyo iska celin oo ummadda Soomaaliyeed u sheegi lahaa qarannimada iyo sharafta in la ilaaliyo oo laga hortago gooni ugoosataga, isagii baa hor socda. marka Siciid Cabdulaahi Deni waxaan ku dhaahdo war dadka wax kaa caqlo xumi ma jiraan ummadda ka xishood. Puntland 3 gobol weeye, waa gobolka Mudug, gobolka Nugaal iyo gobolka Boosaaso ee bari. waaba hadday sii jiraane intaa isku hay. haddaad daacad ka tahay qarannimo iyo dowladnimo iyo midnimo iyo ilaalinta sharaftana
intaa ragga ka tirsan ee dowladda federaalka ka tirsan ee jagooyinka ugu muhiimsan ka haya la shaqee oo aqbal inay madax ku yihiin oo u ogolow inay Boosaaso iyo Garowe kugu yimaadaan oo u ogolow mashaariicda federaalku inay ka fusho gobolada oo u ogolow in ciidanka federaalka ah xoogga dalka laga qoro gobolada haddii kale indhahaaga oo shanabay gacantaada ka baxayaan Boosaaso iyo Garowe qodobkaas ninka dadka caqligiisa caayaan ku dhaafayaa wax badan kama oranayo qodobka labaad waxa la yiri danta daarood ee siyaasadeed ayaa waxay soo gashay doorashada SSC danta daarood ee siyaasadeed ayaa waxay soo gashay doorashada SSC oo macnaheedu yahay doorashada SSC waxa la rabaa in Xasan Sheekh lagala dagaalamo si fayoojarka aqalka fiila Soomaaliya la yiraahdo loo geeyo nin daarood oo Saciid Cabdullaahi Deni la yiraahdo waxaan is weydiiyaa anigu marka laga hadlayo doorashada Soomaaliya iyo madaxweynaha Soomaaliyada la rabo Saciid Cabdullaahi Deni inuu madaxweyne ka noqdo xagee bay ku taalaa dadka Soomaaliyeed ee u codeynaya Saciid Cabdullaahi Deni waa kuwee Soomaalida la rabo inuu madaxweyne u noqdaa waayo Saciid Cabdullaahi Deni miyuusan ahayn ninka la garanayo midda labaad goorma daarood siyaasad uu leeyahay intuu isku dhaqaalaystay oo isku taageeray isku ilaashaday goorma dhacday intaas walow nin abwaanaha oo reer Burcaahi oo lahaa daarood saaqi hawiye waa daliil jaban waxma daafacaan maalintii la isku soo dego dunna waxaan hadhow ku tarayn dabowgal waa hoog waxaan hore idinku sheegay 60kii xorriyadda markii la qaatay 9 sano waxa isbedelayay dawladda rayid ah dawladda rayidka ahi inteeda badan koonfur bay madaxdeedu ahayd saad ka war haysaan goboladan Sool iyo Sanaag la yiraahdo ama waqooyiga dhulka Ingiriiska uu gumaystay 2 gobol bay ahaayeen oo Burciyo Hargeysa ahaayeen dadkii gobolada deganaa ee daaroodka ahaa nimankii xamar joogay Allah u naxariistay oo ay ugu tunka weynaayeen Cabdirashiid Cali Sharmaarke iyo Cabsaaq Xaaji Xuseen iyagoo ka baryaya war nimankan naga hoos saara oo ilma adeeryaal gobol naga maqoonsada oo ay leeyihiin u kaadiyo doorasha dhacaysay nimanka cod baan ka rabnaa ayaa militarigu kula wareegay taladii wadanka okay hadduu daaradnimadu ay siyaasadda daarood isu naxariisato oo ay isu naxdo oo ay tahay wax la isugu gargaaro oo la isku dhowrsado waxaa jirtay 54 xildhibaan ee aqalka sare loo yaqaano hindisaha Garowe waa laga alifay waxaana loo qoondeeyay gobol kasta oo Soomaaliya ka tirsan in la siiyo 3 xubnood iyaga ayaana qaybinayay waqtigaana Faraha madaxweynaha Soomaaliya ahaa nin miskiin ah oo tanaasul badan oo wax badan aan haysan inta badan jeclaa inaan Soomaalinimada eeda ka raacin oo Shariif la yiraaho oo cagta markuu dhulka ugu dhuftaba dib booda ta madaxweynaha 54 xildhibaan maxay Sool iyo Sanaag iyo Cayn ka heleen 3 xubnood bay ka heleen very good example nimanka Warsangala la yiraahdo gobolka bari ee la yiraahdo Isha Boosaaso waa majority gobolka Sanaagna waa majority 6 xubnood haday waayaan oo min 3 oo la yiraahdo waa la degaa ugu yaraan waxay 4 inay helaan 4 inay helaan bay laakiin maxay haystaan hal xubin bay haystaan SSC dhulka hadda la baxayo dhul bahantuhu dego oo fiqishin la dego oo uu la dego cid waliba la degto waxay degaan gobolka Sanaag qayb kamid ah gobolka Togdheer qayb kamid ah 50% balan Togdheer Sool iyo Nugaal maxay heleen waxay ahayd ugu yaraan inay gobolka la yiraahdo Togdheer 2 ka helaan ama mid ka helaan gobolka Sanaag inay 2 ka helaan ama mid ka helaan gobolka Sool inay 3 ka helaan gobolka Nugaal inay mid ka helaan maxay haystaan iyana waxay haystaan hal cadaaladaasi waa cadaalada daarood ee siyaasadda markii laascaanood la haystay 15 sano ee haldoorkeeda lagu dilayay wali siyaasiyiin daarooda oo ay ugu horeeyaan kuwii laga qabsaday ee Garowe ka talinayay intay maalin shir jaraa'id qabteen ma yiraahdeen dadka halkaas lagu leenayo iyo meesha dulmi baa ka socda wali ma aragteen
waa maxay danta siyaasadeeda daarood soo gashay meesha la yiraahdo ii sheeg lascaano doorashada maanta hore waxaan idinku sheegay 2022 markay kala tageen Saciid Cabdullaahi Deni iyo Xasan Sheekh ilaahay baan ku mahadiyay subxaanahu wa ta'ala khilaafkooda dadkana waxaan u sheegay inay nimankaas iskhilaafaan ayaa waxay ka khayr badan tahay inay heshiiyaan maxaa yeelay hadday heshiiyaan Xasan iyo Deni waxaa fasahaadaya masaalixda guud ee waddanka laakiin hadday iskhilaafaan waxaa badbaadaya masaalixda guud ee waddanka waxaana fasahaaday iyaga tabarayfadka oo ah sidee bay noqotay in laascaanood xorowdo oo laascaanood lagu dagaalamo oo dowlad laga dhiso oo maanta la isugu yimaado haddii ay heshiis ahaan lahaayeen ma dhacdeen haddaanu xamse cunaqabatayn saarin oo aanu ka mamnuucin dhulka daarood ila waa siyaasi daarood xamse oo xamse ma suurta gashan inuu laascaanood yimaado وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم إن لقفا إيريمان تواركتان أوكي هذا بدن دار اللاسعانود مسو قلن دور شديدة أنا إذين شيء وحا اللاسعانود سو قلن لاسعانود قبل هذا اللي يراه سولي السناك سكوكي قبل هذا سي qof kasta oo macquul ah oo Soomaaliya oo muslim ah oo caadi ah oo aan shisheeye u shaqeyn oo aan la beelin oo xor ah halka wuxuu ka arkaa harjadii Soomaaliya maxaa yeelay waxa la sheegay qiimeyn la sameeyay oo heritage ay samaysay madasha loo yaqaan walow anigu aan wax kale ka aaminsanahay aaraan la ururiyay iyo ra'yi la weydiiyay dadweynaha Soomaaliyeed qof kasta oo Soomaaliya waxa uu aqbalay meesha maanta Soomaaliya isugu iman karto inay soo leesan agtahay haddii la yiraahdo Soomaalidu haysto timaado xaggee ku haboon maxaa yeelay xamar dad baan tagay oo garow dad baan tagay oo hargeysa dad baan tagay laakiin qof Soomaaliya oo aan laascaanood maanta imanayna ma jiro marka laga reebo kuwa dambiga ka galay saadarteed waxaa la rabaa in laga hortago rajada ummadda Soomaaliyeed iyo rajada reer SSC waxaana la rabaa hal bacaad lagu dhisay in laga dhigo wixii loo dhintay that is why baa waxaa loo soo diray musharaxiin markoodii horeba mujtamaca halkaa degan ay cafis u fidiyeen oo aan lagula xisaabtamin wixii ay gobolkan ka geysteen oo la cafiyey oo ay ahayd dadka indhahooda iyo aragooda iyo luuqadoodaba inay ka qarsadaan sida ay hore u sameeyeen inay maanta ku soo dhiiradaan oo la soo dirana ma aha aaraa iyagu ay leeyihiin ma aha aragti iyagu ay leeyihiin waa agency waa la soo diray waxaadna ka garanayseen khudbadda in khaliif uu jeediyay inay ahayd tiidini anima saaxiibana la hadlay wuxuu ii sheegay burco niman kala hadlay oo habar jeclay inay yiraahdeen warniyo luuqadda ninkaas uu ku hadlay ma aha luuqadii looga baahnaa maanta musharaxnimadiisa lamana uu hadlayn reer SSC wuxuu la hadlayay dad kale waxaanuna ka xunahay sidaa inuu u hadlo maxaa yeelay wuu misgaray haddaba waxaan rabaa inaan Soomaalina u sheego reer SSC-na u sheego hartina u sheego ilmaadareyaalow anagu Soomaalinimada iyo hartinimada iyo daaroodnimada intaba ixtiraam baan u haynaa priority-gana anaga waxa noo ah Soomaaliya inay dawladnimadeedu hana qaado Soomaaliya in dawladnimadeeda la sharfo maxaa yeelay ninka askariga ah ee booliiska ah ama ninka madaxweynaha ah ama ninka wasiirka ah waa shakhsi wuxuuna ka dhashay reer sida goosatooyinku ay u cabiraan dawladnimada iyo xildhibaannimada iyo wasiirnimada way ka duwan tahay waa qof ummadda oo dhan u dhaxeeya una baahan in la ixtiraamo una baahan in lagu ilaaliyo shaqada dadka uu hayo example baan siinaya reer SSC maxay firdhiya u daba socdaan waxaa la sheegay wiil aniga qaraabadayda ah in shaqada laga eriyay maxaa looga eriyay baa leeyahay waxaa looga eriyay $100 oo xisaabtii laga waayay baaritaan markii lagu sameeyayna niman xafiiska kala shaqaynayay oo mission Campbell la geliyay oo $100 la cunay baa dacweeyay isweydii maamul Soomaaliya ka tirsan
in $100 xilka lagu waayo muxuu macnaheedu yahay xaggay Soomaali ka dhacday waa wadooyinka iyo akhlaaqiyadka iyo asaasiyaadka aanu rabno Soomaalida inaanu barno oo ku soo celino dawladnimada iyo isla xisaabtanka inta firdhiya uu mas'uulka ka ahaa halkaana haddii la soo sheego $1 oo ninka ku leexday gacanteedaan ku casilaynaa shirka ahaya ka qarqari maaye ee waxaan ka qarqarayaa ka soo socda waxa firdhiya loola dagaalansan yahay iyo SSC-na waxa ay tahay in laga hortago isla xisaabtanka iyo dawladnimada iyo transparency-ga ku soo foolay Soomaalida oo aanu tusaalaha ugu nahay haddaan nahay sooleysana haddaba anaga nama soo gelin masaalix daarood wax la yiraahdo sideedabana daaroodka xiniyaha iyo siyaasadda isma amaahiyo daaroodna waxa ah dadka marka lagu soo duulo isu duule siyaasadda labada walaalaha baa isku dila waxa la yiraahdaa Allahu naxariis Cabdullah Yusuf 60kii ilaa iyo uu ka geeriyooday wuxuu diiday nin majarteena oo soo baxa inta badan siyaasiyiinta iyo nin kasta oo ka aragti duwanaa dalka Cabdullah buu uga tagay Ilaahay naxariis subhanahu wa ta'ala nin hal leebo ahaa oo Soomaalinimada iyo qarannimada iyo sharaftu ay maana ugu fadhido walow aan ahaa anigu dadkii la khalday dhalinyarada ahaa ee ra'yi ahaan ula dagaalamay qodobkaas haddaba daarood baa masaalixdiisa laascaanoo doorashadeeda loo change garaynayaa duulaankaasi ma aha aragti Soomaaliyeed waana aragti loo soo xawilay oo goosatooyinka ay u wakiisheen shisheeyaha berigii la doortay Cabdiweli Gaas oo rajo badan laga qabay waddanka in aqoon yahan yimaado ayaan waxaan soo jeediyay ninkaas suurtagal ma tahay intuu siilaya inuu tago inuu yiraahdo adeerow si aynu Soomaali u raadino bal intan isugu keendar waliba adu madaxweyne ka noqo ana ra'iisul wasaare ku noqdo mise maalintii dambe wuxuu leeyahay xadka Puntland waa godin labe meeshaan joogay niman dhalinyaro reer Puntland oo qabsan waxa ku yiri nimayahow haddii la yiraahdo waxa la yiri wuxuu ka jawaabayay in la yiraahdo xalka galmudug waa Burtinle waxaan idhi ninkani waa professor adduunku soo arkay oo jaamacadu wax ka soo dhigay sida la inoo sheegay inuu luuqadan ku hadlo oo sida kuwa wax magaratada ah u jawaabeen uu u jawaabaa shakhsiyan bay meel ka dhac ku tahay maxaa yeelay godin laba xagee ku yaallaa intee Puntland u jirtaa ka soo gudub niman yahow siyaasadda SSC iyo doorashadeeda iyo waxa la rabo in laga sameeyaa laguma matalayo daarood lagumana matalayo Soomaali lagumana matalayo harti dadka hartiga ah caafimaadka qaba ku faraxsan xorriyadda laascaanood dhiigoodii iyo maalkoodii ku dhamaaday halkaas oo cid kasta oo hartiya leh oo magaca Puntland wadaaga waxa ay ku faraxsan yihiin sida ay wax u socdaan cidda ay dhibaysana waa naqana ku ay yihiin waxa Ilaahay fadligiisa dagaalka laascaanood oo socda oo aan ku joogin inaan ka digayay khatarta ay maagan yihiin kuwa aan hanka qaran lahayn hanka qabiilna lahayn saadarteed halla feejignaado qodobka saddexaad waxaan odhanayaa yaa mudan inuu isu sharaxo hoggaanka SSC hargeysa nimankii jiray anigu hadal ma yaraysan nin la yiraahdo Jaheeye ayaa halabuur ku soo kordhiyay luqadda Soomaaliga iyo social media-ha oo la yiraahdo isaga iskaanay nimanka anigu ma rabin inaan daba galo laakiin waxaan rabaa inaan idinku celiyo xusuusta dib hore nimanka waxaan uga idhi waxaan rabaa inaan idin dhageysiyo mid kamid ah oo hadda kaameynarada Cabdisaaq Khaliif kamid ah oo attach la yiraahdo luqad uu leeyahay nimankaasi wixii ay laascaanood ka geysatay SNM waxay u ahaayeen sahlayaal waxay ahayd in lagula xisaabtamo haddii dadka aanay diintoodu qabyaalad ahayn ee islaam ay yihiin ilaahay ay yaqaanaan qaanuunna ay leeyihiin oo ay rabaan inay noolaadaan waxay ahayd laba in loo qaybiyo qayb la toogto iyo qayb xabsi daa'im lagu xukumo nimankaas saad ka war haysaan mar walba waxa baacsan jiray nin la yiraahdo Faysal Cali Waraabe oo ku jeesteesi jiray oo fagaarayaasha ku ceebin jiray wuxuu oran jiray cid ma matalaan garaadadoodii ma keeni karaan calooshoodu shaqaystayaal weeye
gobolladooda lama tegi karo arrintaasay marka dhibsadeen marka tuduc aan beriga farri aan beriga nimanka u sameeyay baa waxa kamid ahaa reerka intuu geedka degay marada giirgirtay iyaguba go'doonkiiyo ku jira haatan kala guurka nimanka ganjeelka u xidhmay ee furihii goobaya jahaaday u guureen iyaba haatan garan waayay guryahooda nimanka u tegay oo baahida u geysay oo Faysal Goori ayaan gabagabaynayo waa niman gunnimo qaatay oo ceeb guddoonsaday waxba ha u garaabina garbu Faysal leeyahay annagoo go'aan qaadanay oo diidnay kala goynta gaalada warkeeda iyo dilaal gees isaga tuuray gobanimadii Soomaaliyeed gaar ka wada hayna intay gabadhi nooshahay midnimo gelinay laabteena oo waliba geeriyoonayna oo nala gumaadayo oo cadowgu gaada iyo toos nagu garaacayo gabalkii dhacaba gobolka yaga geesi lagu diigo ninka Hargeysa goobyaalay gaasir baa tahay shirin baa ku geeyay wax kale kaama ay gelin inaa garab istaagtaan ninka jooga gurigiisa oo aad gacmaha hoorsataan kama gabowdaan waxaa geeri gobolkiina taal kama gadoodaan golayaasha aad sheegataan waruma geysaan dadaydan waxba u goyn ayaa gaws ka dhigateen gasin baa ka wada doorateen gumaradiinni inta lagu gumoobo dhammaad garab ka saarteen gabalkiin dhacaye meel xun baa galalafaysaan haddii ay damiir leeyihiin ama wuxuun diina oo ay damqanayaan sidaa uma dulloobeen waxaa mayd isdaba yaalla bay dayi lahaayeen waxay darajo kuu sheegayaan waa daleel madhan niman baa u diyaarsaday inay dana ku gaadhaan wax badan baa nimankaa ka idhi laakiin nimankaa waxaan ku ilaaway oo aan ku cafiyey oo aan isaga daayay inaan ka warramo waxay ahayd tallaabadii 10 goor aan ka mahad celiyey ee Cabdirasaaq Khaliif cid kale oo anigu meeshii waan ka tagay oo waan ka imi macna nooma samaysanaka يعني التاريخ والواقع حسن الخاتمة أيان كفل إن عبد الرزاق أو بلابي إنه كنتني كدقو لكن إنتو شهكله إنتو نجا آدو أنجا إن لوسو أديك سدو مين كيدو وحويه سجع إسكاني نينك اللي ردا أتاش سات كور هيسان دوام وحب حيه ورئيسي قاسو فينا نينك سليمان حاشي اللي ردا رجع داك صحافة ده وان سلامة يا ورئيسي قاضي ونرير SSC erayga firdhiye lagu haysto Cabdirasaaq Khaliif uu ka dhawaajiyay maalintii dhaweyto dani laga soo xigtay oo laga dheeganayo cirro aaminsan yahay muslim iyo gaalba firdhiye ka diiday ayuu weydiiyay wuxuu yiri SSC maxay u magacaabi weyday gudida wada hadalka ilaa Soomaaliland gudbay wada cawday wariyaha oranaya ataash si wacan buu uga jawaabay wuxuu yiri gudidaas lama magacaabin wuxuu yiri meelay ceeb diblomaasiyada wajiga wax ku ahayn in gudida la magacaabi waayo aram xasuusta hadda wuxuu kaga jawaabay ninka la radaa taash laakiin qodobkaas aan idin sheegay Salmaan Xaashi wuu og yahay in cirro iyo ninka la yiraahdo Abdul Qaadir Jirde iyo ninka la yiraahdo ishag ninka habar Yunus la oran jiray ma garanay magaciisa waan laawi waxaan doonaa waxay aaminsan yihiin inuu konfalaktigan yahay inside soolna ay bariga Somaliland tahay bariga sool tahay khasabay tahay gudi in la magacaabo labada gudi wada fadhisan ujeedada gudida ka dambeysana markay idin sheegay gudidaasi fan baan nimankan ku socda Imaaraat iyo Ingiriis baana dabada ka wada ujeedada gudida loo rabaa waxa weeye gudida marka la magacaabo in gudida la iibsado aakhirka gudidaasi ay noqoto dangad la dhaco SSC iyo firdhiye iyo gaanka halka jooga oo la yiraahdo waa horiyo dabadiid wuxuu ka yimi qolyo xaq jira xaqu ka yimi wada hadalada waa ogol lahay nabadda waa ogol lahay ilaa nimankii waa la iibsaday وهران دين كشيء إنه علماء يعذكر يعقال يسمون نول بكديدي أنت نمان كاس أي شيء أنا يندل كان دوميها قبل كسول يهود يسنا قدقين هتلار جيسكو يلا قد بانا المجاعبي وأنا الله فريسني وأنا الله شركي سني وحبانا سوء هاي نبض بانا كود هالله سلمان حاشي وأوجي هاي لكن صدق كيسنا ضد كان لخبي سنة rag waaweyn iyo siyaasiyiin iyo wadaadaba waxay aaminsan yihiin
inay sool Somaliland tahay ilaahu aanan magacaabin nimanka culimada ay hadda cabsaaq dabada ka riixaya laakiin maanan fogeyn baan magacaabi doonaa oo beenta u sheego soo lugoy ilaahu aanan magacaabin isimada waxaan ninkan ku qanciyay Cabdirasaaq Khaliif marba jira gumcu la riday galaaftay ninkii ridee nin in lowdaa gujada waan ka xumahay Cabdirasaaq waxa ku dhacaya laakiin waxaan u arkaa inay tahay mission isaga lagu magac dilayo oo doorashada Soomaaliya aan rabnay inaan u dirno lagaga reebayo oo isaga future-kiisa zero lagaga dhigayo maxaa yeelay in laga daba keeno fadeexadaha laga hayo iyo jariimooyinkii ummadaada aad u geysatay in laga daba keena wax sahlan ma aha social media-huna waa qofka aqliga leh wuxuu xasuusinayaa qiyaamuhu sida uu og yahay maxaa yeelay ilaahay baa quraankiisa wuxuu ku leeyahay yawma tashhadu alsinatuhum wa aydiyahum wa arjuluhum bima kanu yaksibun maalinta ay kugu markhaati kacayaan carabkaaga iyo gacmahaaga iyo lugahaaga wixii aad samaysay adoo nool bay hadda tani dhacaysaa waad aragtaan Cabsaaq wax laga daba keenay anigu ujeedadaydu waxay ahayd 5 sano inuu muud galo inuu magaciisa ilaashado inuu dadkiisa taban taabiyo inuu gadaal isaga taago wuu og yahay haddii aanu waxa qayb ka noqdeen isaga iyo qayrkiis wixii la sano ka dhacay kama dhaceen maxaa yeelay raqiis easy والله أنا عدو قدبات هذا أوجيستي لقو كاني قيمها النف إيا مال له أو أي كوك عدنا وأكتين هذا بقى Cabdirasaaq Khaliif iyo teamka noocaas iyo attach group kiisa oo sidan u fikiraya inay soo sharaxaan ma istaahilaan xaqna uma laha lamana aqbali karo klibkan attach ninka la yiraahdo waraysiga uu bixiyay waxa kamid aha wuxuu yiri hadaan nahay aqoon-yahan career SSC waxaanu go'aansanay Somaliland wax la qabsano arintaasi waa in apologies ka bixiya isagay ku kooban tahay ninkaas sida uu u fikiray iyo waxa uu aaminsanaana isaga idin sheegaya clip-kan yar dhageysta su'aalooda ciidanka ay weydiisay anoo wasiir golaha wasiirada ee Somaliland waxaan u sheegay ka bandhigay arrin walwal aan ka qabay oo aad maanta dhacday taasoo ahayd ciidanka qaranku qaabku u dhisan gareysay inuu yahay qaab khatar u ah sababtu waxay ahayd ciidamadii deegaanka deganaa waxaa loola dhaqmayay sidii ciidamo aan muwaadiniin ahayn oo fantal iskaga hayo oo la fogeeyay oo inta lacag la siiyay ciidamada meel u dhow la dejiyay oo halkaa lagu horjoogay oo aan ciidanka qaranka aanay dhexgelin oo aanay la dirajo ahayn oo aanay la miis ahayn oo aanay isku qasnayn marka golaha wasiirada waxaan ka soo jeediyey inay arrintaasi dhaawac ku tahay dowladnimada aynu doonayno militariga aynu doonayno inuu isdhex galo dadka shacabka kalsoonida ay ku qabayaan in dalkii la wada leeyahay oo ciidankii qaranka la wada leeyahay oo siyaasadii la wada leeyahay bay waxyaabahaasi baysiyiin oo waxyaabaha aynu ku guuldaraysanay bay ka mid tahay marka arrintani waxyaabaha dhacay weeye maanta arrintii maalinta aan ka hadlay waxaan u soo jeediyey xilliga golaha wasiirada madaxweynuhu gudoominayay in ciidamada degdeg la isugu dhaqo bariga galbeedna laga tuuro askariba askari lagu khaldo dirajadana ciidanku uu sinaado iyo saraakiisha iyo tababarka taan soo jeediyey taasay ahayd maantana waxa dhanka kale ka dagaalamaya ciidanka Soomaaliya dagaalamaya waa isla ciidankii shalay iyaga dhinac deganaa ee Somaliland aha okay ingiriisku nimankuu qatalay oo qalbigu taabtay oo shisheeyuhu qalday oo kibirku soo qaaday iyagoo qabiil yar ah kuwii sheegtay qaran buuxa qarowga iyo nimankii la koray qaadka iyo beenta qayraad dad kale leeyihiin nimankii qoondaystay xanuunkay qabaan iyo kuwii ciilka qarin waayay qowlaysatadii iyo tuugadii nagu qamaamaysay naarquutayaashii muddada qubayay dhiigeenna wixii qaala Allaahooda la yidhi nimankii qoljeexay qayimkii islaamka iyo kuwii xeerba qaban waayay nimankii qiyaaskaba ka baxay la isku qiimeeyay rabbigay baa ku qaadir ah inay ciidu qabataaye qacda yeedhay taariikhda soo maanta qaban mayso qarniyada inoo dhimanna soo buugtu qori mayso ninkii waana qaadanaya sooqin ku filan maaha attach ninkaas weeye nimankaas bal ninkaasu heerka uu gaadhay iyo waxa uu aaminsan yahay arka very good example baan waxaan idinka siinayaa ciidamada anigu markaan rabo inaan heer SSC ka hadlana waxaan tusaale u soo qaadanayaa jifida anigu aan ka imi iyo degmada aan ka imi marka aan siyaasadda Soomaaliya ka hadlayana waxaan tusaale u soo qaadanayaa aniga ninka ay khuseeya oo aan qabashadiisa leeyahay magaalada Taleex la yiraahdo
واتقانين رير كدقن وقاريهم بعد دقن عموما لكن رير باخاص وسي دقن رير كامل عيسى واتقانين انتو تشترنا واتقانين صدح عيدان باكا جري صدح ذا عيدان waxaa lagu tartansiin jiray ina kaahin iyo wakiiladiisa ku tartansiin jireen kiineeba badan magaalada dagaal baa ka socday niman cuqaal sheegta ba idinka caaqilkiinimi wallahi anaga hereer hebel ka badan wallahi anaga ka badan idinku caaqil ma lihi wanaad caaqil sameysatan laascaanood wixii ka dhacay ugaadhayahan iyo jaamacsiyaad bahar sameeyay qiyaad hawd wixii ka dhacay nimankii ka shaqeynayay oo ay ujeedadoodu ahayd dhulka dadka guuriga dhulku ma guuro hadafka ugu weyn oo habar jeclo barnaamijkan ay kala hayd uu ahaa in laascaanood wixii galbeed ka xiga laga guuro si laascaanood loo wada yeesho ayuu ninkani wuxuu aaminsan yahay wiilashii dhulbahante oo loo hubaynayay inay dhulbahantaha kala dilaan oo aan loo hubaysan in ciidan laga dhigto ilaa looma hubayn in ciidan laga dhigto mushaharkana looma siinayn inay Somaliland difaacaan inay askar u noqdaan nimankan ujeedadooda dawladnimo ma aha nimankan ujeedadooda waxa weeyaan waa inay NGO-yada iyo kristaaniga iyo qowmaluudkana u shaqeeyaan oo dhaqaale ka sameeyaan dhulkana ay fidsadaan ayuu wuxuu aaminsan yahay fakarka aad arkaysaan ninka noocaas ah oo og fakarkiisa hore waxaan idinku sheegay inuu ninkani ka mid yahay hantida Muuse Biixi هذا حزب مغشان هذا وزير مغشان هذا كذا مغشان فعل هذا نينكاس أن كدي وانجلي إنا كورة إن دولا نلقي دي وانجلي واتاش بأشخاص النوع عاسة هيد أول عفيي أول لقى أقبل إني لاسعانو دي مادان أو سياسيين الاحترام النقدان إني يجا أو حبال وذرادة يدبات الجيستي يداو على لاسعانو دي الله يولا لها كو أحسن يهويين كقبلمي يهنتي ذا بحري إني ما أنت مسيرك أمة صوت دونتان وعمل خدع وأنا قف هذا بقى ما يستاهلان كواسي إني يسوش الرحان وحان يستاهلين سيدي ذا بقى حاران كتاي إني هوغان كيسو تاغان أشخاص تكسو قديي درافيدا soo iibsaday sharaftooda duleeyay dadkooda ka ganacsaday karaamadooda dadka liita hoos joogay dhowr iyo 10 sano noloshu meesha xun ka gashay nimanka wadaadada ah nimanka ismada ah kuwa dabada ka riixaya haddaydan ka waantoobin oo aydan ka laaban qasaman billaahi raxmayar baa waxay tiri raxmay cabdi carab tan waxaanan rabin kama soconayaan tan waxaanan rabin oo aan raali ka ahayn kama soconaya nin iska dhicinaya iyo nin u jawaabaya iyo nin lacag la soo siiyay iyo nin khaanada kala ka hadlaya qasaman billaahi waxaanan doonayn laascaanood kama soconaya iyo SSC yaa mudan inuu sharaxo nin kasta oo ka soo haray kuwa oo nadiif ah oo xalaal ah oo qadiyadan aaminsan sikin wan anaga waxaan hogaanka ku xidhanay oo aan talada saaranay dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh baa la caayaya Ali Xoosh baa la caayaya Xamsa la caayaya waranaga madaxayno saarayeen kulligood haddaad caayaysid aad col tahay sabtiyo aday ku taala cida ku dawladda aadaan noo sheegi doona waa ku mahadinaynaa waana bogaadinaynaa waana dooranaynaa waana soo celinaynaa waana keenaynaa waana isgarab taagaynaa askar baan noo noqonaynaa qaylo soo kama dheera waxa wanaagsan in loo wada hadlo si cad luqad la garanayo finally waxaan kaga baxayaa qodobkaas waxaan hambalyo iyo bogaadino dirayaa dhabka hadalka Highland iyo Sanaag ka bilaabmay waxaan rabaa inaan u sheego reer Sanaag sida garaadka ka hadlay badan uu ka dhawaajiyay wadanka Soomaaliya la dhahdaa hal dawlad buuna leeyahay dawladdaasna waa dawladda federaalka loo bixiyay walaw inagu aynaan u bixin waa markii ugu horeysay oo 1991 laga yimaado oo dawlad Soomaaliyeed ay soo haweysato gobolladeena maamuladii maxalliga ahaa oo aynu samaysanayna waa u jeedaan meeshay inala marayaan maamulkii darajada kuwii aanu tolay oo isdaba taagay oo aan direyska u xidho daafta ka ilaashay oo daacadii aanu qabay aniga diirkayga iska daryeeliyo
inay dirin isexshaane dalluun bay intay igu rideen ugu dabooleen. waxaynu noqonnay waxaan macno lahayn. waxaynu noqonnay wax kooda liita xil la siiyo. waxaynu noqonnay wax kooda nolosha ku adag tahay nolol loo sameeyo. waxaynu noqonnay wax Soomaali lagula dagaalamo. waxay noqotay waxaan laba arag. in Cabdullaahi Deni every single day markuu ka sheekeynayo Somaliland iyo gooni u goosato muxuu uga hadli waayay dhulka uu sheeganayo? muxuu uga hadli waayay ma suudisan meel buu idinku ogaaday. waxaan bogaadinayaa dhabka hadalka Sanaag iyo Highland ka socda. waxaan bogaadinayaa awali marra taariikhda in ciidanka xoogga dalka ee federaalka uu saldhig ku yeesho gobolka Sanaag ee xeebta fog, taasoo badbaado u ah midnimada waddanka, sharafta gobolka iyo qabkii iyo qarannimadii dadka halkaa degan. quusna oo ah dilaaliinta, jawaasiista, gooni u goosatada iyo waxmagaratada ay rabaysteen ama ciro ha lahaadeen ama koofiyada ha siteen ama buugaag ha siteene. dadka la rabaystay ee addoonta laga dhigtay ee caloosha ka hadlana waxaan rajaynayaa waxa dhow dharaaru sharcigu dhaayaleeyahay oo daara dhaadheer sidii dhaxal qaybshaa. finally jamaahiirta waxaan rabaan u sheego rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi god laba goor laguma wada qaniino qofka mu'minka ah. waad ogtihiin nimanka garaadada sheegta noocay ahaayeen intaydan dhiman gacantiina ku samayseen. bacdallaahi gacantiina iyo mowqiftiina ku samayseen. dhiiggiina ku samaysteen. waxay shaalal iyo soo dhaweyno iyo cimaamado iyo faan iyo fulaan gacan dhiiggiina weeye. nin waliba sagaaro uu ka yaraa lamana aqoon. waa inaydan aqbalin waxaydan raalli ka ahayn. waa inaydan kala jabin. waa inaydan lacag qaadan. lacagtu waad ogtihiin meeshay idin gaadhsiisay. wallaahi alcadiim 1997 oo ay soo bilaabatay dabeelihii ugu horreeyey ee waqooyi ka yimi baa waxaan lahaa walle waa laga sheekayn doonaa. walle waa laga sheekayn doonaa wiilka xaajiyadda wata. walle waa laga sheekayn doonaa wuxuu geysto. walle waa laga sheekayn doonaa. adoo sharaf la dhimo haddaa askari noqonaysidna dowladda federaalka ee Soomaaliya u noqo. askari haddaad noqonaysid haloosha u shaqayste dadkiisa lagu dilo guntu kiraysato caloosha ka hadla. waad soo aragtay laascaanood waxay soo martay. waa soo aragtay shirki jaamac siyaadi iyo gaadhiyahan jagoori maantaan lahaa xigmadii fadhiday reerka iyaga xaygii laga qaad xilkaska iyo waayeelkii baa xaaqmay oo tegey. kuwii xaajaqaadka u ahaa baa xabaal galay. kuwa maanta xeerka u hayaa ma laha xaydaan. ma jiraan waxay xeeriyaan oo xisaabtan maalinta nuuxtaana lahaa kuwani waa ansaar. kuwani waa ansaarta. kun wiil baa ciidda ku jira. ha aqbalinina oo ha yeelinina waxaad u dhimateen waxaan ahayn. muhiimadaydu firdhiya ilaaliya ma aha. ilaaliya mabaadida ah. haddaana firdhiya waxaa u doorateen iyo mabaadidii ku taagnayn iska bedela. geed meesha ka baxay maaha dhaxalna muusa helin wuu tegayaa. laakiin ha aqbalinina shalay meesha ka timaadan inaad ku laabataan. fasiiruu fi lard fandiruu kayfa kaana caaqibatu lmukadibiin. orda booqda xabaalaha. habar jeclaa timi. habar jeclo nabad ma rabto oo derisnimo ma rabto oo walaalnimo ma rabto. wallaahi alcadiim inta ay xabadda rabaan oo muslimka yihiin oo dhulkoodu ku filnaanayo oo ay dib u fadhiisanayaan oo cagaha dhulka dhigayaan xal aan xabad ahayn ma leh. not Somaliland. Somaliland stand wax Somaliland la yiraahdaa ma jirto. niman habar jeclo la yiraahdaa jira. mashruucan iyagaa iska leh. waa ogtihiin waxay today damacsan yihiin. nafiba geedka ay beeratay goosan midhihii aniguna guddoon iyo xornimo wuu gudgalayaa. asalaamu calaykum.